xiisadii ka jirtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa wali taagan kadib markii waxba laga qaban waayay dadkii halkaasi ka waday rabshadaha. 9 maalin oo xiriir ah oo ay ka socdeen magaalada Laascaanood barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeeday joogitaanka ciidamada Soomaaliland ee Laascaanood ayaa wali sii socda. waxaana lagu guul daraystay wada hadallo iyo baaqyo dhaadheer oo la soo saaray kuwaas oo lagu dalbanayay inay Soomaaliland joojiso xasuuqa shacabka ayna isaga baxdo gobolka Sool. dhinaca kalena waxaa jiray dad kale oo ku baaqaya inay shacabka mudaharaadaya joojiyaan rabshadaha iyo dhibaatada ay ka wadaan magaalada Laascaanood ayna isdejiyaan ayaga oo la xisaabtama dawladda iyo dadka ku metela. Soomaaliland oo ciidamada militariga iyo ciidanka RRU-da geysay magaalada Laascaanood ayaa ku guul daraysatay inay xakamayso barnaamijyada halkaasi ka socda. waxaana ay ciidamada militariga Soomaaliland marar badan oo kala duwan qaadeen tilaabooyin kala duwan oo lagu xakameynayo mudaharaadyada socda. ayaga oo mar jaray internetka magaalada Laascaanood kaasi oo ahaa kii ay ku wada xiriiri jireen dadka magaalada Laascaanood ka wada mudaharaadka. kooxaha dhiirigelinaya iyo kooxaha kale ee wacaya telefoonada kula hadlaya ee ka dambeeya barnaamijyada ka socda Laascaanood. dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag ayaa aaminsan in baraaruga ka socda Laascaanood uu ka weyn yahay reer Laascaanood ayna tahay mid ay ka dambeeyaan siyaasiyiin iyo maamullo kale oo dana gaar ah leh kuwaasi oo raba in la fashiliyo dhaqdhaqaaqyadii ugu weynaa ee ay Soomaaliland samaysay 5 sano ee la soo dhaafay. waxaana qoraal xiisad cusub abuuray dhawaan sii daayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraalka Farmaajo oo ahaa mid ay ka muuqatay inuu Soomaaliland si gaar ah u beegsanayo si dhiirigelinayo shacabka mudaharaadyada wada ayaa waxaa loo arkay inuu ka mid yahay dadka ka wada magaalada Laascaanood rabshadaha, taasi oo cadeynaysa in kooxdii madaxweyne Farmaajo ee nabad iyo nolol ay ku daaban yihiin barnaamijyada ka socda Soomaaliland. waxaana baraha bulshada Facebook iyo Twitter si weyn uga taageeraya oo Soomaaliland cambaareynaya siyaasiyiin la soo shaqeynayay madaxweyne Farmaajo kuwaasi oo si dhiirigelinaya shacabka Laascaanood kuna dhiirigelinaya inay sii wadaan barnaamijyada. taas ayaana waxa ay banaanka keentay in kooxdii madaxweyne Farmaajo ay qayb ka tahay rabshadaha ka socda magaalada Laascaanood. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu dareensan culayska iyo xujooyinka ay abuurayaan kooxda madaxweyne Farmaajo kuwaasi oo aaminsan haddii aysan gobolada qaar ayagu saameyn ku yeelan qabsana ay siyaasadda Soomaaliya uga dhamaan doonto. xasan oo qorshahaas fahmay ayaa ka gaabsaday waxaana dhinaca kale dantay oo ka yaraatay Soomaaliland cadaadiskii ka haystay warbaahinta ee dadka taageersan dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud ay ku cadaadinayeen markii horeba inay Soomaaliland isaga baxdo iyadoo ay xiisadda Laascaanood yeelatay waji kale loona arkay inay kooxo siyaasiyiin arrintaasi dana gaar ah ka leeyihiin. dhinaca maamul goboleedka Puntland ayaa isaguna waxa uu isaga gaabsaday xiisadda Laascaanood waxaana madaxweyne Dani uu isku dayayaa inuu magaalada Laascaanood ka qabto doorashooyin dadweyne isagoo halkaasi u bixi doona. kulamo dhex maray Axmed Karaash iyo madaxweyne Dani ayaa guul daraystay. Axmed Karaash oo kaligiis gadoodsan ayaa Garowe kala baxay kolonyo gaadiid ah waxa uu la fariistay duleedka Garowe isagoo halkaasi kula ku shiraya siyaasiyiin iyo ciidamo ka soo jeeda beeshiisa. inkastoo ay caqabad ku tahay oo uusan marna tagi doonin magaalada Laascaanood taasi oo ay ka sokeeyaan ciidamada militariga Soomaaliland oo fadhiya Tukaraq. si walbaba ha ahaatee xiisadda Laascaanood ayaa u muuqata inay sii degayso